Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan saaxiibadeyda waan idin salaamay meel kastoo aad joogtaan maanta waxaan qaadan doonaa ama idin tusi doonaa qaabka loo delete gareeyo Facebook ama hawada looga saaro. Waxaa keeni kara sababo badan inaad leedahay laba Facebook oo ay ku weerareen saaxiibadaada. Laba step ayaan mari doonaa: deactivate account iyo delete account, oo ah inaad toos uga saarto khadka Facebook-gaaga iyo inaad soo ceshato maalmo kadib 30 maalmood kadib. Marka waxaan soo furan doonaa Facebook-ga soo furo. Marka soo furtid halkan ku qorantay setting and privacy taabanay kadib settings ku helo hoos u soco. waxaa raadinay account ownership and completed mesh raadi kadibna delete and delete waxaan ka dooranaynaa delete account. qaybta hoos ayaan dooranaynaa waayo anaga waxaan rabnaa inaad si toos hawada uga saarno Facebook-ga. kadib marka halkan taabtid waxaa leedahay meesha ugu qorantay delete taabanay kadib halkan wuxuu ku leeyahay laba step ku siiyay footoodaada ama footooyinkaaga ama videoda ka soo degso. haddii kale si toos u delete ku dhawaad hadda si toos aan deleteynaa delete account yaaleena hoos aan taabanaynaa. halkan markuu ku keeno enter password waxaan gelin doonaa passwordkeena Facebook-ga ku isticmaalaysid. continue leedahay wuxuu ku dhawayaa hadda si toos ah u delete gareey Facebook-gaaga 30 maalmood dib u soo ceshan kartaa, laakiin 30 maalmood hadii la bis waa oo continue dhahay bis. aad iyo aad u mahadsantihiin saaxiibadeyda qaaliga. wixii fikir qaybta comment-ga nooga reeba.